أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي المرحمة نبي الملحمة، علم الهدى، القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله منها وإياكم من الفتن والضلالات. إخواني وأخواتي في الله تعالى، ولا ريال كلمتين بإذن الله تعالى aynu ka soo jeedinaa halkan ayaa in wanaagana la isu sheego, xumaantana la isu diido biidni illaahi tacaala inta waqtigu inooga saamaxo. wanaagga oo la isu sheego, xumaantoo la isu diido waa arrin aada iyo aada u qaaliya oo u muhima, diinteenna wanaagsan na ay u timid markaa in dadka jahliga laga saaro, in wanaagga iyo bayinada iyo caddaynta iyo xaqa la tuso markaa. allah subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahy: wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin, isagoo la hadlaaya markaa nebiyullaahi moxamed, afdalu rusul wa afdalu lkhalq. waani maxaa yeelay waanadu dadka mu'miniinta ah ee qalbigooda iimaanku ku jiro ayay anfacaysaa. aayaad kale ilahay wuxuu ku yidhi: inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأداة حصر، إنما إن كلا ما هم مؤمنين تمويه كوا مركا إلهي لسوق هذا وجلت قلوبهم، قلوبتهم مركا عبسي أي قشة مركا سكيل جيشو مركا آيات إلهي لقوا خينا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إيمانو زيادة مركا قلوبتهم. waxaa laga yaabaa qofka muslimka qalbigiisa marka wacdi uu maqlo, qur-aan uu maqlo, markaa qur-aanka sheekha uu doonayo codkiisa uu dhegaysto, in qalbigiisu jilco oo in fara badan qalbigiisu uu khushuuco markaa. waayo qalbigu marna wuu engegaa oo qaswatul qalbi baa ku dhaca, marna qalbiga bani aadamku wuu jilcaa markaa labadaas siyood buu shaqeeyaa marka qaswatul qalbi uu ku dhaco waa marka majaalu dhikri walwacdi waltawciya waltawsiya uu ka fogaado. marka uu markaa jilcaana waxa weeyaan marka majaalka uu markaa haleelo. majaalka uu haleelaya waa majaalkee? waa majaalka muxaadaraadka, hadday tahay mid cabra alhaatif wa cabra alinternet sidan oo kale markaa uu ka dhagaysan karo, hadday tahay mid markaa uu uga faa'iidaysan karo inuu gurigiisa ku dhagaysto cajalad, mid mimriga uu ku shuban karo, mid uu markuu socdo dariiqyada uu dhagaysan karo. si walba diintii maanta qofku uga faa'iidaysan karaa. aalaadkan casrigaa buu ka helayaa. waxa uu ka helayaa masaajidadii. maanta qof odhan karo diintii maan baran oo jahli ba ay haya ma jirta adduunyada. waxaynu joognaa waqti mufajir almacluumaat uu qarxay markaa macluumaadkii ama aqoontii la odhan karo way qaraxday markaa. qolada reer galbeedku waxay yidhaahdaan wakti waxaynu imika noolnahay macluumaadka intiisii ugu badneed markaa dadku ogaaday markaa. wakti aynu ognahay makshuufaad
in la kashfiyey markaa waxyaabo fara badan oo dadka ka qarsoonaa. callama alinsaana maa lam yaclam, laakiin ka dadka baray waa ilaahay. huwa aladii adxaka wa abkaa, wa huwa aladii agnaa wa aqnaa, wa huwa aladii amaata wa axyaa. waa ilaaha markaa isagu dadka dila, nooleeya, qani ka dhiga, faqiir ka dhiga, markaa isaga ay markaa ummadda oo dhani ay u baahan yihin, laakiin isagu ganiyun can ilcaalamiin, ummadda ka kaaftoomay markaa. walidaalik baynu leynay wanaagoo laysu sheego iyo xumaantoo laysu diido ilaahay baa subxaana wa tacaala ummaddan ku ammaanay. maxaa uu yidhi ilaahay suuratu lcimraan: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani ilmunkari wa tu'minuuna billaah. waxaad tihiin ummadta ugu khayrka badan. ilaahay baa subxaanahu wa tacaala idin soo saaray oo ummadda idin soo saaray. ta'muruuna bilmacruuf, wanaaggaa u sheegaysaa, xumaantaa u diidaysaan. haddii wanaagga laysu sheegi waayo xumaantana laysu diidi waayo, tii reer binu israa'iil ku dhacdoo kale ayaa inagu dhacaysa, oo ahayd in ilaahay dabar jiraba. haddii aa wanaagga isu sheegi weydaan, xumaantana isu diidi weydaan, qaar kale ayaan ilahay idinku bedelayaa buu yidhi. wadaadadii reer binu israa'iil markaa noolaa wanaagga dadka umay isu sheegi jirin, xumaantana umay diidi jirin. kaanuu laa yatanaahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yacmaluun. ilaahay markuu ka warramayo lucina aladiina kafaruu calaa bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam. waxaa lagu nacdalay dadkii gaaloobay ee reer binu israa'iil ahaa carabkii ciisa ibnu maryam iyo nebi daawuud. dalika bimaa casow wa kaanuu yactaduun. way caasiyeen waana xadgudbeen, diintana way ka fogaadeen. culimadoodiina wanaagga umay sheegi jirin, xumaantana umay diidi jirin, bal ninka caalimka uu iskala walaaqan jiray markaa. taas waxay keentay in qaswatulqalbi qofkii uu ku dhaco, qalbigii uu ku dhaco. rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh markii ilaahay ummadda usoo saaray juhaal bay ahayn markaa dadku, xataa ubadkooda iyo hablaha aasa jahli halkay ka gaadheen baa ubadka yaryar ee hablahay dhaleen ee markaa bini aadanka ka mid a ee markaa ubadkay dhaleen ay ku raaxaysan lahaayeen eegmadooda, waxtarkooda, waxbaristooda, intaba jahli bay waasi jireen markaa. waa jahligu halku gaadhay markaa. carabtu berigaa jaahilinimo halkii ugu dararaysay maraysay markaa. waxay isku dili jireen faraskaygaa kaa dheereeyey. 40 sana buu dagaalkaas u socon jiray. ilaahay muxuu yidhi aayaad qur-aana: laqad manna allahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحا إلهي سبحانه وتعالى وليه لقد من الله قلب أيا بيدين شاكتي مؤمنين وكوكن لذا يستمركا حقيقة إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. مركو الرسول نفوه دا كم إذا صاري ونهين ملك سمدا كيميدو ونلا فقرنين يتلو عليهم آياتي آيات أيها أخرى يا با إلهي سبحانه وتعالى آيات ويزكيهم طهرين آيا مكا ويعلمهم الكتاب والحكمة كتاب في حكمة دبرات وإسلامين دتكي صحابة نقضين رضوان الله عليهم الله كره لنا قضي مركا هي قلنا لنا إلهي وكره لنا قضي رضي الله عنهم ورضوا عنه وكسبضي كقاري مركا الدنيا عاشوا عزة وماتوا سعداء. waxay ku noolaayeen iyagoo cisaysan oo induleysneen. waxay duleysnaayeen kadib waxay dhinteen iyagoo sucadaa oo guuleystay. waxay jahli iyo kufri iyo shirki ku dhiman laayeen kadib. taas waxay ahayd markaa qur-aanka iyo diinta ay qaateen. in fara badan oo habawday halkay jahli kaga dhinteen markaa. aynu garanayna abijahl, abilahab iyo gaaladii waqtigaa nooleed markaa oo loogu taagayo war hanuunka raaca, war diinta raaca, ilaahay ka amar qaata. oo rasuulku ku odhan jiray diinta uu wadaa markaa innahu la saaxirun majnuun, waa sixir iyo waali. qur-aanka ay la yaabeen inaanu gabay ahayn, inaanu wax laysu geeye ahayn. kuwooda ugu fasaaxad badnaa ay isu yimaadeen ay yidhaahdeen qur-aanka wax la midi ma jiro.
taas ayaa markaa walaalayaal ay u timid diintu in wanaagana laysu sheego xumaantana laysu diido markaa oo ah maqsadka ummaddan markaa laga rabo inay la timaado waana maxalul iqtidaa birasuul salawaatu rabbi wasalaamu caleyh halka aynu markaa kaga dayanayno rasuulkeenii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waana maxalu tashriic markaa ummaddu inay fuliso oo laga helo haddii laga waayana ummadda axaadiis fara badan ay tilmaamaysa markaa in masaa'ib fara badan ay ku dhici doonaan markaa ummadda laga waayo markaa wanaaggan inay isu sheegaan xumaantana isu diidaan markaa xajatulwadaac baa rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu uu lahaa falyuballigh ishaahid minkum alghaa'iba ha gaarsiiyo wacdigan iyo fariintan xajka dadkii joogow dadka maqan ee aan xajka joogin gaarsiiya waa kuwayna soo gaarsiiya ilaa iminka waniga fariintii shaqadii ambiyada wataa ilaa iminka socoto dadku ay meel walba markaa ka dhegaysanayaan ay ka daawanayaan inahaas ayaynu kusoo gunaanadaynaa markaa dadka qulubtooda iyo qofka jeedinaya intaba ajar ayaa u socda marka allah inagu anfaco wabillahi tawfiiq subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk